channel أصحابتي هذا السلام معايا ما أنتوا حضورنا فلوق سوسة براتيكال لنا وهو سنتين أما هو سنتين الحاجة سو أنا عارفة إنه حيوان كمان هنا أنا أعرف نين كهنا كعصة أنا موبايلك يدفع من هاي والله. السلام عليكم أصحاب السويتي صباح وناسي عارفين كورما ساكسي هرنو ما أنت نورا على جبت مرة بدنا أيدي سر نورا واتنا ما تسكن تدوم يكون ما كان استغفر الله فلوقتو عايزين دوينا ما نفلوقي لباتواي waxaa u soconaa baraatika u soconaa waxaa soo baraatikaaneen idinkaan u sheegaysiin insha Allah la sidoo ay soconeena insha Allah muuqaaladan oo kala daajicsiin oo idin soo badin doonaa bilicda wadankeena aan soo duubi doonaa meelaha kaliidatiin iyo meelaha u quruxda badantiin waan soo duuba meelaha ka xuntii hadaan soo duubnaa ni istaago meesha quruxda inta aragtiin ku farxa meesha ku xuntiin meesha quruxdiin ku farxa dadoo mugdin waagan soo waa idin garaalkineena idinka mobilka أنا موبايل كده أنا وعفسنه يا والله قعدت أنا وكجرينه يا ترى أنا موبايل كلي خاتمانتن وعفسنه يا قعدت أنا وجرينه ساموت دارك إنه يبصي درنت هاي ما يكون كورة صار ما هلا واتسا ودته جديد موت ميراس أو صوت دجنا حاول سعد عرفني أنا صوت سعنه سيان فلوجين أو ونعرف بدنا وجدينا ودلوقتنا سامح على ولا أرتب تذكر لا يا أبو ولا لا وجدينا وهكذا ساعات وناكسن سنة بس الحمد لله جامعة دائما بس كن القاعدة لأن ميلها نوجوها أصحابنا ينشوسا بسكو نورنا تنا أصحابنا على ذا هرتا ما أنت أنا أفرح سنة مكان مركز لبعض من سد حد متى أنا بقول دو خنين يا ها ما شاء الله راتي كده هذا وقاعد وكنا جامعة موجودين أمنا أصحابي وسلسعد وناكسن إن شاء الله ميلها عندنا سو هذا وأزديارنا استيل بس كل سكونا دوال بدنا ما شاء الله بس كسكونا كم حكودا تلفون عادي وحابة أرضي بدنا كبحونا سو إن شاء الله سلسعونينا بارت تايم أنت كنت على ماشي أنا ولا ترشد ما كاني ما يالذاك الصبر دونا أنا أقدر عادي أنت ويدو ماشي واحد سوس ميسنين براتيكو ما أنتنا meel cusub aadina in xaafadaha kala soo barnayna anagu iska joognaa le maahayna wax meel aan ka seeno male so insha Allah jaamacada joognaa u jeedin it's beautiful place another new day insha Allah blogada noocan hada doontii waan idin soo duubi doonaa insha Allah wax badan oo faa'iido leh أنا ما هذا ما أنتظر. ما شاء الله. سو كذا نوعا مكسر إنه هذا الكبر المجال أنا مكسر. First time vlog أدري. No vlog كذي صح. سو إن شاء الله ما أنت ماشي مركن نلقي وحكي أبنا هاي. وحاول فهمنا هاي عذرك بيا عذرك يوصل باردو. What's your bone disease? No. How I know how to colorate the water. بيا colorate لو دقة أما fresh لو دقة وحيوان بسوفه. سو واحد كان هاي عافماتنا هذه جرى على كتل نامه هذا المات بينا نسوه بيننا معناها سو عافماتنا مرة بكون ترى سمينا إذا هذا إلنا الجمان وسو مش حابة إن شاء الله وكذا.
meelo qurux badan ay idin duweynaa. Let's go. haatanna waxaan caga dhiganay warshada biyaha Al Naciim oo ku taalo magaalada Muqdisho. Waxaana arki doonaa howlaha kala duwan ee ka dhex socda. waxaan u soo talaabnay gudaha warshada biyaha Al Naciim waxaana ka socda howlo fara badan taa oo ay ka mid tahay qaababka caagadada loo sameeyo amba loo sijalaateeyo. halkan idiin muuqata waa goobta caaga lagu sameeyo oo lagu dhalaaliyo looga dhigo caag weyn oo biyo lagu shuban karo. sidaad aragtaanba waxa idiin muuqda dab ka oo lagu sameeyo caaga. waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah ardayda dareenkooda sida ay u arkaan wax qabadka warshada biyaha. تعالى وبركاته waxaan ahay arday ka mid ah jaamacadda Balaasma maanta aan soo booqanay warshada Al Naciim kaasoo ka sameysanaynay baraatikadaas oo ku saabsan water supply. dab ahaantii waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa macalinkeena qiimaha badan leh oo noo ogolaaday fursad aad u qiimo badan inaan imaano warshad aan ka helno faa'iidooyin badan. faa'iidada ugu horeysa waxay tahay inaan ogaano in caagan waxa laga sameeyo. ugu horeyn caagan waxa laga sameeyaa bacdaas la ilaalinayaa shaygan aad u yar laga soo saaraya idan shaygan aad u kulul ayaad arkaysaan caagooyin fara badan in laga sameeyo. dab ahaantii qodobo badan aan ka hadli doonaa water boiling water chlorination iyo qodobooyin kani waa ayuub waxa uu inooga sheekeeyay qaabka ay warshada howsha u wado iyo waxyaabaha uu ka faa'iiday iyo booqashada maanta uu ku imaaday warshada biyaha Al Naciim iyo sida uu arko iyo waxyaabaha la kulmay. baraatikada maadada water filtration waxaan ka faa'iiday wax badan. Zaki, Ayuub iyo Nuura intoodaba waxa ay si wadajir ah ay ugu sheegeen in ay abidkoodba iska cabi jireen biyo diyaarsan oo nadiif ah. balse maanta waxa ay indhahooda ku arkeen heerarka kala duwan biyaha. waxa ay booqasho ku imaadeen warshada biyaha Al Naciim oo ku taala magaalada Muqdisho. waxayse indhahooda saareen heerarka kala duwan biyaha uu maro iyo sida loo nadiifiyo iyo sida loo sameeyo. waxay hawada ammaan u mariyeen warshada biyaha Al Naciim taa oo u sababtay imaatinka ay imaadeen iyo sida loogu soo dhaweeyay. bismillah runtii maanta waxaan soo booqanay shirkadda Al Naciim ee soo saartay caafiga anagoo ka duuleyno barnaamijka water supply maadaas oo baraatika u maanay shirkadda aad ayaad inoo soo dhaweysay. maanta aniga asxaabteyda waxaan maanta joognaa shirkadda Al Naciim oo soo saarta caafi aad u sareeyo heerkiisa. runtii waxaan leeyahay asxaabta maanta soo booqatay Al Naciim dhammaan waxaan u sheegayaa dhanka youtube-ka ismacaan oo kaleeto inay Al Naciim center ee qayb qaataan biyahooda caafiga oo aad u sareeyo. waa soo aragnay biyaha qiimaha ay leeyihiin iyo sharafta ay leeyihiin. marka waxaan leenahay asxaabta youtube-ka Al Naciim center. runtii biyaha Al Naciim aad aad u dhadhamiyey. runtii macaankooda waa biyo saafi ah oo ah water iyo oo la hubo oo warshadooda warshad fiican ay tahay maadaama ay tahay warshadaha ka shaqeeya magaalada Muqdisho khaasatan waxay ku taalaa degmada Xoosh. biyaheeduna waa aad u adeegayeen.
xabsi general waxaan leeyahay runtii aad iyo aad umahadsan tahay maadaama maanta aan naga mid tahay dadkii ka soo qayb galay barnaamijkii aan sameeyeynay water supply-gii shirkadda Al-Naciim. waxaan leeyahay leega community-ga staff-ka adigu waxaan leeyahay YouTube-ka xabsi general YouTube like comment-iga waa xalgiina. Samira waxa ay ka mid tahay ardayda booqashada ku imid warshadani. Waxyaabaha aadka ugu cajaa'ibta badnaa waxaa ka mid tahay Samira caaga ay biyaha ku caweyso asalkiisa meesha uu la facaa iyo heerka uu maro. Samir marka hore isbar asxaabta. وعليكم السلام برشا وناكسن أصحابته كل حرن جنالك حبسه runtii aad u faraxsanahay inaa janaalka xabso maanta ka soo muuqdo xabso maanta waxay nagu soo booqatay warshadda Al-Naciim ee magaalada Muqdisho ku taalo anagoo ah arday jaamacad ka imaanay maadada water sanitation oo imaanay baraatikadeeda runtii warshadda Al-Naciim waxay ku taalaa magaalada Muqdisho maanta anagoo arday jaamacad u imaanay baraatikadaas oo ahayd water supply sanitation oo ku saabsaneed nadaafadda iyo biyaha deegaanka ku jiro runtii warshadan waa warshad aan ku qanacnay haddaan nahay ardayda Muqdisho wax ka barato hadda waxaa aragnay wax ugu yaabka badnaa arkay ahaayeen caaga warshadda meesha laga soo saaro caaga yarka u jeedin waxaa laga sameeyaa caaga weyn runtii waxay ila noqotay wax macquul ah laakiin marka baraatikada arkay waxay noqotay wax aad u fiican marka xabsi iyo asxaabta kale ku xir maadaama asxaabta wax barashada xabsi la ahay halkana ka salaameynaa sheegaya waa Nuur Aadan Cali welcome Nuur waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabaha ay ka faa'iido sida oo aragta maanta booqashada ay noo booqatay horta dhab ahaantii lama qiyaasi karo farxadayda xamaasadayda inaan imaado warshad waa markii ugu horeysay aan soo booqdo warshad caagan waa la yaabi jir hortay mar walba waxaan dhihi jiray habkee loo sameeyaa sidee loo soo saaraa haddana wayba ila macquul noqon weysay in caagan saan u yar in la bush gareenaayo oo laga soo saarayo biyo caagan u jeedin dhabti waa aqoon kale gooni ah insha Allah idinkan waxyaabo badan inaad ka faa'iidi doontiin oo malayn doona qof badan aqoonna laga yaabo inuu had wax uu ka faa'iiday waxaad ogaatiin caaga biyaha caweysin inay saan u yar tahay marka hore dan in la bush gareenaayo ama waxyaabo kale loo isticmaalayo dan caaga u jeedin qurux badan lagu soo saarayo tan kale run ahaantii water supply waa qaadan jirnay qoraalo waxyaabo badan aan ku akhrisan jirnay qoraalo ku akhrin jirnay ayaan aragnay inaan haddana baraatig ahaan ama feature ahaan u aragnay dhabtii waa mid kale gooni ah aad ugu mahadcelinaynaa macalinkeena qaaliga ah oo nagu dhiirigeliyay dadaalka noo sameeyay oo intana keenay warbixino badan aan inta ka qaadanay information badan aan helnay hadda ma sha Allah warbixino badan waa helnay alxamdulillah wax walba waan fahanay dabta ujeedada aan u rabnay in nala ogaataan vloggan ujeedada u duubnay ma ahan inaan anaga views ku raadino waxay ahayd in idin tusno biyahaas inaan anaga ka faa'iidno idinkana aan nala faa'iidin hadda waxyaabo badan waa naga barateen horta caagan habka loo sameeyo feature ahaan inta kaga arki doontiin waadna ka faa'iidi doontiin dhab ahaantii waxaan idin rajaynayaa inaad idinka nagu caawin doontaan dhan walba page-ka xabsa waxaan idin leeyahay mar walba garabkeeda ahaada way idin dadaalaysaa waxyaabo badan ay idin faa'iideynaysaa wax walbana garabkeeda ahaada waad mahadsantihiin xabso aad waa mahadsan tahay inaan ka soo muuqano janaalka xabsana maanta aad bay noo farxad gelinaysaa waxaana ku sugannahay warshadda Al-Naciim annagoo u joogno practice inaan suubino maadada water supply-ga waxaa ila jira saaxiibkeyga Jamaal Yacquub sidoo kale waxaa socodkan nagu weheliyo walaasha Nuura inaan janaalka ka soo muuqanana aad baan ugu faraxsanahay Jamaal soo dhaw saaxiib ugu dambeyn asxaabta maxaa leedahay like share iyo comment gali lama janaalka xabsa lagu soo yaaco ugu dambeyn waxa inoo itlaaday oo halkani inoogu soo gabagaboobay barnaamijkeeni oo ahaa maanta booqashadeena warshada biyaha Al-Naciim haatani waxaan ku soconaa wadada waxaan u soo laabanay xaafadeena inta aan wadada socday waxa ay indhahaygu qabanayeen meelo qurux badan oo ka tirsan dalka gudihiisa taa oo u muuqato waqtigii ka sii dambeeya marba markii ka sii dambeysa in uu dalka sii dhismayo sii qurux badnaanayo taana ay sababayso in aan nabad fiican sii heleyno marba markii ka sii dambeyso